مسؤولينta banka dhexe ee Soomaaliland ayaa waxa ay maanta magaalada Hargeysa ay ku soo bandhigeen jaangoynta qorshaha waxqabadka banka dhexe ee Soomaaliland ee 5 sano ee soo socota waxaana daahfurka munaasabadaasi ka soo qayb galay xubno kamid ah golaha wasiirada Soomaaliland mas'uuliyiinta banka gaarka loo leeyahay madaxda banka dhexe iyo waliba marti sharaf kale oo aad u tiro badan ugu horreyn waxa halkaasi hadal ka soo jeediyay agaasimaha guud ee banka dhexe ee Soomaaliland Cabdillaahi Xasan Aadan qorshaha jaangoynta 2018 ilaa 2022 ama strategic plan 2018 insha Allah bidna kariim cidda aanu doonayno inay wax ka ogaato waa hay'adaha xilku naqada hay'ad ee aanu superfast aanu leysan ka siinay isla markaana aanu kor joogteynta ku sameeyno badiyada xawlu muddo 2 bilood ah ama 3 bilood u dambeeyay kastoo ka horreysay aad ugu mashquulsanaa diyaarinta mashruucaasi strategic planka waxa kale ku mashquulsanaa dib u habaynta iyo dib u eegista xeerka shaqaalaha bankiga oo la waafajiyay xeerka banka dhexe oo dib loo habeeyay saddex in banku uu ka guuro habkiisu hore ku shaqeyn jiro oo u guuro habka IT-ga dhinaca kale mas'uuliyiintii soo diyaariyay jaangoynta qorshaha waxqabadka banka dhexe ee Soomaaliland 5 sano soo socota ayaa halkaasi ku sharaxay isla markaana ku soo bandhigay wax badan baan soo marnay waxa weeye horta teamku inuu isla fahmo hawshan la qabanayo way wax hore dhacay maaha marka banku shaqaalihiisu waa dad experience leh cilmi leh waa dad xaqiiqdii aad iyo aad aan maanta oran karo mustaqbalka banka kororooda baad karaan system u gaara laamaha iyo qaarkood oo ku shaqeyn jiray tab iyo magaranaysa qaab old fashion u shaqeyn jiray marka labadii sano ugu dambeeyay runtii wuxuu banka Soomaaliland wuxuu ku talaabsaday horumar xagga IT-ga marka wax yar baan soo bandhigi doona sidoo kale inuu halkaasi hadal ka soo jeediyay mas'uuliyiinta banka gaarka loo leeyahay oo banka dhexe Soomaaliland ku amaanay soo bandhigida jaangoynta qorshaha waxqabadka banka dhexe Soomaaliland 5 sano soo socota hadna ugu faraxsanahay barnaamijkan iyo magarasa istiraatiijiyadan ay soo gudbiyeen Central Bank waxaan leenahay annagu haddaan nahay Dahabshiil Bank iyo banka private-ka ah waxa weeye waxay noo tahay farxad waxay noo tahay horumar markasto oo Central Bank awood yeesho waa markasto oo bangiyada private-ki awood yeeshaan waxaan ku qasbanahay inaan la shaqeyno Central Bank waayo dantayada ayaa ku jirta Central Bank waxaan islaahay sida ay soo bandhigay bangiyada private-ka halka imika ay ka joogaan tiknoolajiyada iyo halka bangiga dhexe maanta la soo gaarsiiyay inay isku mid yihiin hadaan marka bangiga dhexeba aanu hadda ka hormarin oo mesela ATM switching-ki iyo Swift-ki iyo markuu soo kordhiyo waxa weeye uu ka horeynayaa bangiyada private-ka laakiin sidii imika bangiyada private-ka u shaqeynayeen ba gobolada 6 gobol ee waaweyn sida ay bangiyada private-ka u gaadheen oo kala systemka laftiisa ay u gaadheen ama iwanadii ama microfinance shirkadaha kale iyadoo la isticmaalayo marka taasina waxaan isleeyahay waa horumar aad muhiim u ah oo ay gaadheen wadaha jiray waxaan u arkaa maanta hooyadii bangiyada oo ah mas'uuliyadii bangiyada ama hay'adaha maaliyadda oo ah bangiga dhexe ee wadan leeyahay oo ah bangiga dhexe Soomaaliland inuu maanta u kacay isla markaana uu diyaar u yahay inuu kor u qaado isla markaana uu difaaco hawlihii looga baahnaa munaasabadan ayaa waxaa ka soo jeeday wasiiru dawlaha madaxtooyada Soomaaliland waxaanu banka dhexe mas'uuliyiinta si weyn ugu amaanay qorshahani ay soo bandhigeen gabagabadiina waxa halkaasi ka hadlay isla markaana uga mahadceliyay cid kasta oo ka soo shaqeysay qorshaha jaangoynta waxqabadka banka dhexe 5 sano soo socota gudoomiyaha banka dhexe Soomaaliland Maxamed Cabdi Ibrahim Doobaale kala fahanteedu waa taa nagu sii kalifaysa inaanu sameeyno maadaama aanu hayno bangigii ganacsiga shaqadiisii bangigii Soomaaliland ee ganacsiga shaqadiisa aanu hayno ee xagga shilinka ah inuu ku shaqeeyo waa tan uu kalifisay inaanu shilling sameeyno si aanu la jaan qaadno dahabiyo iyo zaad taasa markaa waxay keentay inaanu markaa aanu sii wadno ilaa inta laga wareegay bangiyada private-ka naga wareegayaan bangiga ganacsiga Soomaaliland taasaan lagu horumaray runtii bangiyada private-ka ah runtii aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa
aad iyo aad iyo aad baan soo dhaweynaa waayo shaqo laxaad leh ayay qabtaan shaqo aad iyo aad u fiican bay qabtaan runtii shaqooyinka ay qabtaan waa shaqooyin dalku u baahan yahay laakiinse inta ka dhimanna waxaan jecelahay waxna istiraatiiji banaanka noogu jiraan waxna kalena waanu isla eegi doonaa runtii aad iyo aad baan talashigii hore mid ka dhow aanu samayn doonaa runtii iyagana gabagabadii munaasabadaasi ayaa waxaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey qaar ka mid a mas-uuliyiintii ka soo shaqeeyey jaangoynta qorshaha waxqabadka baanka dhexe ee somalilan ee 5 sane soo socota. cabdirashiid cabdiwahaab xuseen, Universal TV, Hargeysa.